ويو حق إيو جور الراعي هدي لا دونا waxaan ka hadlayaa waa muqdisho runbaan ka wada hadleenahay indhaha muqdisho waa inay noqoto meel dawladda federaalku ay ka arrimiso oo dadku aynan hub haysan oo dadku horumar u taagan yihiin oo bani aadamka noo imaanaya aanu la dhiil gareeno oo si haddaan ala laga waayinay bani aadamku siday u wada ilaan qori adoo wata dadka si aad ku soo dhaweysa way adag tahay marka dawladda federaalka in loo dhaafo maamulka muqdisho waa muhiim taas halkaasaan ku dhammeynay oo hubka muqdisho in hubka laga dhiga weeyo hubka la dhigaya haddaadan ogoleen please waxaan kaa codsanayaa maamul goboleedkaaga aag haddaad reer Puntland tahay Puntland aad haddaad Hirshabeelle tahay Hirshabeelle aad haddii aad tahay haddaan laga waayinay haddaad tahay Koonfur Galbeed aad haddaad Jubbaland tahay aad Soomaaliya haddaad Somaliland tahay aad Soomaaliya hubka muqdisho laguma haysan karo dad qabiil ah muqdisho ma degana ruma idin sheegaya dadka caanaha keena oo muqdisho caanaha ka keena waxa la yiraahdaa xamar day iyo xamar baa la yiraahdaa taa waa isla og yahay dadka xaga caanaha keena qaarna waxay aadayaan oo ay ka qayb yihiin oo ogtihiin Koonfur Galbeed qaybna waxay ka mid yihiin Hirshabeelle waa qasab taas waa wada ognahay been ma sheegayno xamar day qaarna waa Hirshabeelle qaarna waa Koonfur Galbeed meeshan ina carqalad la isu sheega ma ah kuwaasi markay magaalada imaanayaan hub lama imaanayaan hubkooda waa inay balcad soo dhigtaan oo ay muqdisho ayagoo caana wado oo caws wada ama se waxay kale ay wada ama xoolo wada inay imaadaan weeyo bani aadamku sidoo u dhaqmaan oo idin sheegayna waa qaabka dawliga awey oo macnaha dadku u shaqeeyaan wey marka muqdisho hub laguma wadan karo muqdishona looma nisbeen karo reer baa hubka laga dhigayaa qofkii yidhi reerku maamul goboleed buu leeyahay reer aan maamul goboleed lahayn ma jire maamul goboleedkaaga aad bilis oo hubkaaga halkaa ka sharciye balcad markaad soo marayso hubkaaga iska soo dhigo imow muqdisho ku dood haddaan siyaasad haddaan ka hadlo ama baaxmushtar ka noqo that is your business haddaa baaxmushtar tahay hubkaaga waad haysan kartaa waa la diiwaangelinayaa haddaad siyaasi too al-shabaab ka baqayso hubkaaga waad haysanaysaa waxaa lagu iclaaminayaa hubkaaga inta aad haysan karto waa lagu iclaaminayaa 4 AK baad haysan kartaa already waa la sheegay dawladdu way sheegtay waxaa laga rabaa 4 AK-47 ayaa lagugu waardiin karaa waxa wixii ka badan ileen dawlad kuma soo weeraraysa oo dawladdu waa safe waad ogtiin been horta waxaan la hadlayaa hawiye nimanka hawiye oo siyaasiyiinta inaan ereyga idhaahdo nimanka hawiye phobia ka qabaan hawiye ina markaan idhaa phobia ka qabaan laakiin dantiiba qasbaysa inaan magacaabo ilaa cid kale oo dib haysa ma jirto run ma idin sheegayay waxaana in la isku nacana ma ah waa run weey waxaan aad iska dhaadhicinaysaan oo hubkii baa la iska dhigayaa oo reer hawiya hubka laga dhigayaa oo daarood baa macnaha haddaan alla laga waayinay naqabsanahay aad leediin war daarood meeqa mayl buu idin jiraa ma daarood baa muqdisho ma intuu gaalkacyo ka soo weerar tago buu muqdisho idinku imaan karaa miya ma intuu kismaayo ka soo weerar tago muqdisho idinku imaan karaa war yaa caqligu inuu shaqeeyo wey caqligu inuu shaqeeyo wey bani aadam hadaatiin daarood meel uu ka soo weerar tago idinku imaada ma laha dawladda federaalka ana waa dawlad federaala oo haddaan alla laga waayna ummadda u dhaxaysa way naga wada dhaxaysaa muqdisho ka shaqeynaysaa hubka dhiga hubka haddaanan dhigaynin goboladiina iyo meesha maamul goboleedkiina uu jiro tago oo ka diiwaan gasho halkiinaas ahaada markaan muqdisho imaanayso adigoo bani aadam ah oo bulsho rayid ah oo dawladda isu dhiibay oo u gacan dhiibtay ilaa cid ku weeraraysa cid ku haysa male dawladani nasiib waxaan ku yeelanahay labada ra'iisul wasaare madaxweynuhuba waa niman humble ah qalbigooda markay hadlayaan baad ka dhax akhrinaysaa niman humble ah oo aad iyo aad waxaan ka baqayaa inuu ilaahay nagu cadaababa nimankaas ilaahay inuu dhibaato kalaba nagu rido ayaga dartood baan ka baqayaa nimankaas markii aad aragto qalbigooda iyo siday u hadlayaan waxaad leedahay ilaahay baan kugu dhaartay waxaad leedahay waxaanu ku dhex badbaadaanu gallay baad ayaad ka fikiraysaa inaan ilaahayna badbaadiyey
ayaa damiirkaaga gelinaysa oo run ah marka waxaan idin sheegayaa hubkana sidaa weey taa labadaa waan ka hadlay labadaa arrimood waan dhameeyay waxaan ka hadlayaa oo kale Puntland iyo weerarkii al-shabaab dad badan oo Soomaali ah ka waran qof Soomaali ah hadii dad Soomaali ah oo al-shabaab oo garanayso oo cadowgii ummadda Soomaaliyeed ah oo cadowgii bani aadamka ah dad haddaan alla laga waayinay ama iska saxuuranaya ama iska afurahaya haddii inta la soo ataaga ileen qorshe ma ku jirin dagaal iyo waxaas maan inkastoo askartu inay soon iyo soon la'aanba askarigu inuu iska ligan yahay oo taa u taagan yahay muhiim weeye waa qasab weeye taas waa qasab ama soon la'aan aabbaha iyo hooyada sirta militariga looma dhiibo rumaan idin sheegayaa sirta meelaan u soconahayo xaaskayga ma ogaan karto markaan military ahay meeshaan u soconayo waxaan sameynahayo never ever nobody oo la aamini karo oo sirta militariga loo dhiiba ma jirto marka qofka militariga ma seexan karo soon iyo soon la'aan ma seexan karo waa xaqiiq weeye inkastoo taasi ay tahay wax abaxsan oo qalad oo anigu arrinta ayada aanan aad iyo aad macnaha aan saaraya macnaha systemka meesha ka jira qaladkii uu galay waa waxay ayagu ay mas'uul ka yihiin wey laakiin si cadow inaan leenahay baanu ogeenba in cadow al-shabaab la yidhaa oo soon iyo soon la'aanba ku soo weeraraya inuu jiro baanu isla ogeen oo run oo dadkoo dhan ogyahay wey marka arrinta ayadaa in laga diyaar garoobo weeyo laakiin dadka Soomaaliga ah oo macnaha ka dhigaya eeg u durbaantubaya oo waliba fantasi u sameynaya oo baadhi u sameeyay ummad Soomaaliyeed oo al-shabaab ay haddaan ala laga waayinay ay soo weerartay oo haddaan laga waayay waliba aan maarta si qaldan layso maarta laakiin anagu waad ogtihiin run baan idin sheegaynaa arrinta ayada arrin ummadda Soomaaliyeed qof damiir Soomaaliyeed oo ku jiro dad Soomaaliyeed oo bilaa sabab la'aan ciidan Soomaaliyeed meel iska jooga bilaa sabab la'aan aan cid weerareenin oo deegaan waxay ku fiican ciidamada Puntland oo run baan idin sheegayaa oo qabalin ahaan uma hadlayo oo run ciidamada Puntland ayagu wax ma raadsadaan haddaan la soo raadsan never ma soo raadsanayaan run baan idin sheegayaa cidna ma weeraraan haddaan la soo weerarin laakiin haddii la soo weeraro qaniyadaasi dharbaaxa jaan baa lagu bedelayaa dharbaaxa jaan believe me waana run wey waadna wada ogtihiin dadka laysma xaqiro Puntland ciidamadeedu waa ciidamo tababaran oo jawaab ka bixinaya wixii soo abaara jawaab ka bixin kara wey oo si degdeg ah waliba jawaab uga bixin kara